حقنا وساري درسداس ما وبا درسده درسداس من بدرحه ما بيصير إذا ما حرب أنا خدت أيه تيار بسم الله الرحمن الرحيم ولي waxaan joognaa Qurujo waxaanu doonaynaa maanta inaan dadka u gudbino aqal Soomaaliga geedka dhaladiisa la saaray waxaan doonayaa xajiga bal inaan ka wareysano arrintan iyo waxa la rag badan baa ku soo guursaday aqalada meesha saaran xaji magacaaga adoo ku bilaabay iyo balmooshay baa aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdi Xuseen oo Maxamuud aye waxaan waxa la yiraahdaa aqal Soomaali waya geedkana lagu aaray sax dadkii lahaaba ka doogsaday oo xoolaha la daqraacay waya sida badan boqolkiiba 80 ama 90 Soomaalidu aqalaha isku aroosana ku aqalgalaan waa sida aniga laba reer baan lahaa aye labadaba kan baan ku aroosay waa gartay aqal Soomaaliga alxamdulillah waana dhaqankii hidaha Soomaalida dadku sida badan baadiyo ka soo jeedaan maadaama baadiyo laga soo joogo wiil iyo gabar labadaba Soomaali oo sharaf leh kulli suu geenayo eeshana malaha wixina malaha صح marka aqalkaas ay gabdhuhu sameeyaan dumarka sameeyo aad baa loo qurxiyaa wuu qurux badan iyo alaab qurux badan baa la dhigaa halkaas la isku aroosi waxaan rabaa wax ka weydiiyo ma aqalkii intii sare ee reeriyadii iyo kabadii inba mise waa aqalkii oo dhan waa kala duwan yahay wax isku arooso mise kan هذا وحوي هاي وحالة هذا ضفل أما وحالة هذا هي اللي هذا وحالة مركب مقع بدن بكون هي مقع بدن بكون وحالة فصل ما هي عوز يوم ما يرحم عيال ما يحصل وحال الشري باشل والدرب يقول وكلام فكاس وحال السماية وحال السكرة أيون والمترة وجبيش السر ها جبيش السر magacay kala leeyihiin hal leeyahay kabad leeyahay ma hadowr buudaa bal leeyahay waxa kale oo leeyahay war maxaa jiray cilis bal leeyahay waxyaabo badan buu leeyahay iridi kan waxa faaca leeyahay waya marka hadda waxa in halkan ka maqan loolkii iyo dhigihii iyo afaafkii iyo aloolkii wixii buu maqan marka waa heeriyadii intaan heeriyadii waa roobkii laga asmay صح روبku halayni halkaas lagu asturay way marka badacda aqal baleera geed waa la aaray waa la aaray baa leeyahay saas deegaanka looga yaqaan looga meel qaar waxa la aqal aar waa sax meel duurka marka lagu aaro haleera aqal aar way suurtagal ma tahay alaabtan halkan ku aaran inuu tuug yimaado dhaco suurtagal ma tahay oo hado meelaha qaar waa dhici kartaa laakiin ma badna dhaqanka Soomaalida kuma jirto hadii ay dhacdo oo aqalkan nin tuuga qaato gabar ma lagu guursan karaa walaad waa booli waa xaraan waa gartay sax dhaqankeenu ma dhici kartaa si magaalku u fahmaan diigan inta la xaday gabar lagu guursaday caruur ku dhashay ma ka tilmaan caruurta tilmaam gooni ah iyo yeelanayaan hadii bulshada dhexdeeda sida badan way noqonaysaa sababta waxa la yiri hal bool aan yiri xalaal ma dhasho wax mar baad xaraan yahay mar uu faa'iido keenay way okay aad baad ma sitay geedaha waxa nala sheegay inay kala duwan yihiin marka waa geed waliba waxa la saaro Soomaal lagu aaro soo sida ma kan waa qurac hadda way waa gastay قرع ولا ماشي وكروجو هي وحال يرادا ولا كوش برا هي كروجو ولا يرادا ماشي انا waxa weeye hadii jiri wala كوش wasiya برا waayahay aad buu ma san yahay badanaha sidoo naga warramay geedkan iyo arrimahan halkan waxa ku dhan
dadka deegaanka community caruurtii odayaashii marka aad baa maasantahay halka xabaq ka tahay xagarka waa xabagtiisa marka maxaa u isticmaashaan idinku xabaqta waxaa loo isticmaalaa xaajigan wuxuu inoo keenay xabagtan aad arkaysaan ee midabka quruxda badan leh xaaji xabagtan magaca geedka noo sheeg maxaase loo isticmaalaa geedka xagar baa la yiraahdaa waxaa loo isticmaala dhowr shay waaye hadda cunug baa lagu daaweyn hayaa oo limoni dhowr jeer intii la duray waxba ka qaban waayay yaa hooyadii yaa saakay ku dhoobaysay sax cunugii waa hurdi lag waaye jirka oogada loo mariyay hargabka markuu kugu dhacana waa la cabaa marka qaniyada maska saasoo kale garlaha saasoo kale sax waa geed daawadaas shilintoo kale xoolaha markii shilinta waa la mariyaa xoolaha shilinta haddii laga mariyo shilinta waa dhimanaysaa marka hadda waxaad leedahay qofka limonia ama dhaxan ku dhacday haddii oogada loo mariyo wax weyn bay ka taraysaa wax weyn bay ka taraysaa qofoo hangarale iyo mas qaniinay ma meesha la marinay mas waa la cabsiinay waana la cabbi meeshan waa la marinay waa la marinay wax kale oo daawo oo qabto ma jiraan ya wax kale oo daawo oo ku ogtihiin geedkan ma jiraan waa jiraa maxaa ka mid ah nabar hadduu kugu dhaco waa la saaraa bararkaas iyo waxaas sax caabuqaasay waa la duraa baadiyahana magaaladana waa la geeyaa waa la gataa marka ma halkan midabkan uu leeyahay mise midabka kale uu leeyahay kala nooc okay hadda kiilada kun shilin oo kaash mana Kenya jooga kiilis waa kun shilin Kenya mana kun shilin Kenya adigu waa $1 waa $10 waa sida $10 $9 wali waxaan ku guda jirnaa inaan weydiino hal doorka ku dhaqan magaaladan Qurujo wali waxaan gacanta ku hayaa xabag liido waxa laga soo baray geed liyaado xagar waxa ila joogo Xuseen Nuur Jiiro oo kamid ah duqeyda magaalada Xuseen bal naga war xabagtan iyo waxtarkeeda iyo meesha laga helo xabagtan horta aniga 18 sano gadaya way adaa gadaya ana gadaya li Kenya haye xabag xagartan qolo Shiina qaataan horta soo dhoofiyaan China dhoofisa way marka shayna hadda kulli wuxuu ka soo saari karo ana ma garan karo laakiin sida aan maqlay daawada xoolaha lagu duro oxysta la yiraahdo iyo kaniinkan malaria loo isticmaalo labadaas waan ka sameeyaan baan maqlay laakiin ani ahaantay intaan khibrad u leeyahay baashan horta waa daawo malaria baasha la yiraahdo ma gaaro biyaheeda hal buro inta dhan 1.5 biyaad ku ridaysaa habeenkaad ku barisiini subax markuu dhigo uu bariyo ka junga bahalka leeyo shahmeeraha ma aha loo dhigaa shandada loo dhigaa waad ka meeraysaa hal bakeeriyaad ka cabaysaa subax intaadan waxba markaad misid aad cadeeto misid ka soo baxdo hal bakeeriya cabaysaa dadka isku mid ma marka ninka ay calooshiisa ay fududahay caana yaro galaas haduu ka dawcago wuu bixiyaa caloosha soconaysa intaad tumiyeynaysan waxaan u maleeyaa malaria wax la yiraahdo isku imaanaysa hadda ani jirkeyga duurkaan baryaa habeenyahan hadda kanoo kale markaan iska bixiyo qaniinjida waxay u taalaa malaria iga muuqanaysaa la tusi karaa kaneecada ay cuntay duurka habeenyahan soo baryaay ogaday hadda maciyeeda wataa Soomaali ma Soomaali kuskuuskaas duurka aan baryo waay saaka markay ma galaasan ka cabay isbitaalna uma baahanay sidaan aaminsan wali intaan isticmaalay isbitaal uma baahanay marka sidaas weeye marka baashan dadka jabana waa lagu qabaa qof bilaadan markuu jabo annaga dhaqankeena malmal iyo wax baa lagu dawaamo biyarna lagu qasiyaa markay adkaato una la marinayaa marayna lagu duubiyaa dab lafta isku toosinaysa midda kalena waxaan arkay u joogay qolaan jiraan inaan cunug masgaduud baalka iyo dhajiga yaaqin markaas in yaroon duur ka soo gurto ari baan la joogay yaa la taali cunug hal galaasan siinay marka oo loo qasay waa la qaaday isbitaalka weyn Gaarisa la geeyay dhaqaatiirta markay baareen waxa leeyahay ninkan daawada asiisan maxaa waa mariidkii wadana baabisay gabigiisu marka baashan xara la yiraahdaa geedka xagarka la yiraahdaa ka laga soo guro marka hadda kulli geedka daay meesha iskuulku ku yaalo inaad aragtay intaasan garan yaani ma kulli aad baa ma safay Xuseen Nuur Jiiro aad buu maasan yahay faa'iidada ay leedahay xabagtan waa naloo sheegay sidoo inoo sheegay dawladda China ama company Chinese qaata Nairobi kulay marka ayaa loo dayma la'aan dawadan wax weyn baa ku jira Xuseen aad baa ma safay bismillahir rahmaanir rahiim wali waxaan ku guda jirnaa faahfaahinta guriga halka lagu aaray haddana ruux dumar ah inoo yimid oo kamid ah dadka arintan kundiga u ah
magacaaga adoo ku bilaabaya soo dhawow إبراهيم باليدا maxaa lagu yidhahdaa أبشروا إبراهيم abshire ibraahim geedka waxaa ku raaran aqalka soomaaliga ها أقل صومالي bal aqalka soomaaliga inta shay uu ka kooban yahay bal wax noo sheeg وحكا كوين هاي عو دبيل وحلدها kow وحكا كوين هاي ميرع waya وحكا كوين هاي دون وحكا كوين هاي دف ده ذاك اللي ديري أو اللي فيري صح marka hore soo cadaysma qalad waxaan sameynaa marka dambana waan soo fisanaa waya marka waan dhisanaa haye ninka aan guri dhagax qabin mise alla ilaahay aan guri kale waxa kala kodkatay aan qabin kan uu dhistaa waya waa aqalka aan adduun la dhaho waa aqal adduun baa masinay nag aqal iyo adduun baa haa waa gartay waa ka de anaga waa ka aqal adduun adigu yaad ka soo gaadhay caqliga iyo garashadaas in meesha wax la saaro waxaan ka soo gaaray hooyada iyo aabahay baa ku soo dhaqan jiray yaa ku soo dhaqan jiray haa marka guriga adaaba ku dhashay ba anaba ku dhashay maasha Allah adigu miyaad ku dhashay marka anigana waan ku dhalay haye aniga waa liigu dhalay anna waan ku dhashay waa waan ku dhalay gartay haye waayahay halkaa markuu saaran yahay qiimaha uu idiin samaynayo ka dumar ahaan wuxuu noo sameeyay muxuu yahay qiimuhu idiin samaynayo qaymo noo sameeyay waxa waaye hadii la dhis abuurka naga cuni hadduu ma saaran yahay abuurka cuni hadduu roob ku da'o naga madoobaani marka madoobaashadan kaga reebayna abuurkan kaga reebayna haddii aan soo dejino soo qurxan baan soo dejinayna sax marka aqligaas aan u saarno meesha waayahay intuu halkaa saaran yahay adigu wax waardiya iyo inaad ilaalisid wax kale oo dhibaatada ka ilaalisi iyo miyay jirta mise halkan buu saaran yahay ma waan ilaalinayo abuurka geedka uu geli karaa oo bacda ka dhamaan kartaa oo waan ilaalin bacda maxay u taraysaa bacda roobkay ka reebi qorraxday ka reebi kastay ka reebtaa intaa ayaa raggii torreeda soo bateen yaa soo batay waa maxaa raggaan la runaa labadan nin sidiina ahaada dhinaca u soo jeesta xagga xagga igu soo jeesta torreeda hal arkay adigana maasha allah